maanta waa maalin taariikhiya waa maalin taariikhdu isqorayso halkan bulshada reer Somaliland ee maalinta bariyo u diyaar garoobaysa doorashada waxaan idin leeyahay marka koowaad muwaadin ku coday nabad marka labaad muwaadin waa maalin taariikhiya waa maalin mustaqbalkaaga aad ka fikirayso waa maalin aad dooran doorto shanta sanadood ee soo socda mustaqbalkaagu sidoo u ekaanayo qof kasta oo muwaadina oo kaad codeyn haysta waxa saaran mustaqbalkiisa nololeed iyo dalkiisa iyo dadkiisa oo ekaan doonaan shanta sano soo socota waxaad sugaysaa inaad kala doorataan amni nabadgeliyo caafimaad waxbarasho iyo inta bedelkeeda oo maanta haysataan oo leedika bedelayo inaad doorataan inaad jeelasha buux dhaafisaan inaad busaarada iyo baahida isla daba gashaan iyo sixir bararka in leedii kala abtiriyo laascanood buu soo burburiyay oo ka soo faraxashay oo ciidankii qaranka wuxuu burburiyay wuxuu baabiyay wuxuu ciidamada ka dulqaaday wuxuu cid kale ku wanjalay iyo wax jeelasha ugu jiray wax dhintay wax dhaawaca boorama sugaysa oo doonaya in Itoobiya iyo cid allaaliye cid doonaya iyo wax allaaliye wixii danihiisa ka hor yimaadaba inuu jiro maanta waxaynu iska qabanaynaa rajiimka fogaaday ee taladii qaranka la aanbaday ee isagoo geeliisii dhex jooga aynu madaxtooyo u dhiibnay waxaynu u diraynaa geeliisii waxaynu odhanaynaa wargeelaagii dhaqo mudane waxa aad la aanbatay qarankii sumcaddii sharaftii midnimadii wadajirkii dowladnimadii dadkii walaala ahaa waxaad ku bilowday khudbadaadii koowaad in dadkii iyo doorashadii lagu dhiibay intaad ilowday qarankii inaad tiraahdo dadkii aynu ka guulaysanay waxay moodayaan in laga xaraga qaato inantooda guur beeshay waxaad ku xajisay labadii qof ee muwaadiniinta reer Somaliland ee ku kala dhimatay dhexdooda inaad kii ku xigay tiri geeridu geel jiray inaad garanayn baad ku fiican tahay waxaad la tagtay baran oo halkaa uu jarankaa uu ka yidhi bariis baa cuni jirteen adduunyada lama arag weli askari qaran oo xabad u sita amnigiisa oo lagu yiraahdo culays iyo bariis baad naga cunaysaa adigu haysaa inaga tag maalinkaas oo qaranka xuduudihiisa fasaxay maantana boorama in lagu yiraahdo bariis baa cunaysaa naga tag baynu sugaynaa warmo waxaynu dooranaa ninka jeelasha iyo magiinadii iyo ummadii iyo carruurta suuqa ku leynayay ee garan waayo war bal haddii aad diidan tahay oo sharcigii xitaa aad ka taloobsatay nafaha jarine bal waxa rabshada lagu joojiyo oo kaliya ku dami waninka halka aqoontiisu ay dhigayso ee mudaharaadayaashii carruurtii oo meydkii iyo dadkii oo yaalan lahaa reer baa mudaharaadaya maantana Hargeysa cod ka helaya buu taagan yahay war waxaad Hargeysa inay mid noqoto waxaad Hargeysa inay walaalo noqoto si aad barayado walaalaaba iska saartay muuso ka liito maanta sanduuqeedii soo dhigayna inaad ugu rogtaan weeye waxaan idin leeyahay shacabka reer Somaliland musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi maanta waa garanaysaan 20 sanadood in ku dhow ayuu baarlamaanka iyo golayaasha qaranka idin matalayay wuxuu idin dhisay xisbi qaran oo golayaasha sharci dejinta iyo kuwa dawladaha hooseba si wanaagsan idin ku soo xulay caasimadihii baa maanta quruxdooda arkaysaan iyo horumarka ka socda deegaankii iyo dadkii uu idin dhisay iyo xisbiyadii ayuu ka dhigay mid la wada leeyahay dawladnimadii iyo siyaasadii Somaliland bis amni ka dhigay iyo qoriisu dhiib waxa laga rajaynayaa inuu noqdo mid amnigiina iyo noloshiina ballanqaadadii horena kama bixina tan sida aad doonaysaan idin ku fuliya hadda ballanqaadadiisa doonaysaan ogaataan waxa la leeyahay wuxuu ballanqaad galay mid walba arka sidoo uu qabtay waxaan idinka codsanayaa muwaadin habeen iyo maalin baa isdhinac yaala dulmi iyo xaq baa isdhinac yaala waxa isdhinac yaala kii xabaalihiina badinayay ee jeelashaydu ku guray ee idin kala abtirinayay ee laascanood oo u tartamaysa inuu ururo furato xabad dib ugu celiyeeyo dagaalo sokeeye ee dalkii kala jaray boorama oo maanta qarankii halka uu ka dhisan yahay ah maanta waxa la yaabaa oo aan arkay madaxweynuhu eelka kii dhigay dacwootoy isagii baa ka baroranay ururadii u furay war hadal jilicsanaa baan maqli jiray war maxaa kalifay inuu isagii wuxuu keenay ku bararto waxaad leeyahay muwaadin maanta waa maalintaadii waa maalintii aamusnaydeen ee hadalkiinu muuqanayay waxaan idin xasuusinayaa qaranka inuu ninkani waxa la leeyahay wixii dawladda caalamiga waxa la leeyahay wixii iska aynu lahayn waxa la leeyahay wixii daneeyayaal dalka joogay waxa la leeyahay wixii Somaliland saaxiib siyaasi ay lahayd iyo mid ajaanib iyo mid caalamba in uu hilfaa u laabay mid waliba afkaran waayo ka dhaqaaqay waxaan idin xasuusinayaa madaxdii qaranka dadkii waxgaradkii iyo culimadii inuu mid walba albaab ka soo xidhay abaal haddii uu garanayo dabadda uu saareen Suldaan Xasan kama soo xajeen 20 cisho isagoon haysan buur madow jeelka muu dhigeen isagoon bil haysan salaadiintii iyo siyaasiyiintii dalka wax laga weydiin lahaa dhammaantood
mid faali ku dhaco mid ka carara mid ka soo xaja mid ka maqnaada ilaa ugaaska boorame ugu dambeeyey war qarankii dhammaa halkaasuu dhigay ma waxa aad doonaysaan inaad midhmidh isu cuntaan iyo qof qof iyo qabiil qabiilo maalinba islaan ooyeysa iyo tolaa iyo baroor aad dhegaysataan war qarankan in ninba nin u dhiiba baynu doorannay shantiisa shano ayuu nin waliba qabanayaa ninkii guul daraystay waxba qaban waayana isagaa isdayacay ka kalena aynu jaaniska siino waxaan idin leeyahay musharaxa xisbiga waddani waa nin dadnimadiinna iyo qarannimadiinna iyo diintiinna iyo dalkiinna iyo magaciinna iyo sumcaddiinna ba ilaalin doonaa isagana way ka muuqataa waana barateen waanu idiin shaqaynaya waana arki doontaan waxaan idin leeyahay maanta waa maalintaa aarsan lahaydeen ee sharciga u aari lahaydeen waa maalintaa aarsan lahaydeen dulmiga ka aari lahaydeen waa maalintaa u aarin lahayn dalkeennu u aaro inanku maalinta hooyadii guursanaya aabbihii buu hiil leeyey 7 sannadood somalilan waxay gashay hiil aan loo meeldayn waxay gashay burbur iyo dib u dhac waxay gashay meel aanay weligeed gelin waxaan idin leeyahay kala doorta habeenkaiyo maalinta